asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana wanaagsan dhammaan asxaabta nagu xiran guud ahaan barnaamijkan waxaan kaga hadli doonaa ama ku qaada dhigi doonaa programka DV Lottery ee sanadkan sida aan wada ognahayba DV Lottery waa fursad dahabi ah oo sanad walba soo noqnoqota taasoo waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanku siiso dadka ka soo jeeda wadamada taariikh ahaan ay yar tahay soo gelitaankooda dalka Mareykanka waxaana la bixiyaa ilaa 55,000 oo fiisa sanad walba warbixintan waxaan si gaar ah ugu falanqeyn doonaa goorta uu furmayo DV Lottery-gu isbedelada cusub ee sanadkan lagu kordhiyay shuruudaha saxda ah iyo khaladaadka ay tahay in laga fogaado wasaacid xaaji aadan soo dhawaada mar kale goormuu furmayaa programkan sida la filayo wuxuu furmi doonaa bilowga bishan October 2025 gaar ahaan labada bisha waxaana la filayaa in uu socon doono ilaa iyo bilowga 7 bisha November ee isla sanadkan waxaana naga xasuusin ah inaadan sugin ama dib u dhigin xaraysashada programkan sababtoo ah waxaa la isku raacay in codsiyada horey loo diro ay ka fiican yihiin kuwa gadaal laga diro maadaama shabakada ama website-ku culays ku imaan karo maalmaha ugu dambeeya maxaa cusub ama lagu soo kordhiyay sanadkan sida aanu ka soo xigeynay bogagga wararka iyo khubarada socdaalka ee waaxda arrimaha dibadda ayaa qoraysa wararkan sida Boundless, Envoy Global iyo kuwo kale sidaa darteed halka sanadihii hore xaraysashada programkani ahaa mid free ah waxay waaxda barnaamijkan u qaabilsan arrimaha dibadda dowladda Mareykanku soo rogtay xeer cusub oo dhigaya in dadka iska diiwaangelinaya DV Lottery-ga sanadkan ay bixiyaan lacag qiimo ahaan u dhiganta $1 marka ay isdiiwaan gelinayaan haddaba waa maxay shuruudaha ku hor yaala sanadkan si aad programkan u xaraysato si aad u xaraysato programkan waxaa jira shuruudo asaasi ah oo ay tahay in aad buuxiso tusaale waa inaad haysataa shahaadada dugsiga sare high school diploma ama wax u dhigma haddii aadan haysan shahaadada dugsiga sare waa inaad haysataa ugu yaraan 2 sano oo khibrad shaqo ah gaar ahaan 5 sano ee lasoo dhaafay dhanka kale sawirkaaga ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee sababi kara in codsigaaga la diido haddii uusan sharciga waafaqsanayn waxaana ka mid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee ay tahay in uu sawirku buuxiyo si uu u noqdo ugu yaraan mid la aqbali karo kalar ahaan waa inuu yahay sawir midab leh cusboonaysiinta ama waxa loo yaqaan recency-ga oo ah in sawirka la qaaday 6 bilood ee ugu dambeysay ma aha in aad isticmaasho sawir hore oo aad lottery ku xaraysatay ama programyo hore u isticmaashay waa in sawirku si buuxda u muujiyaa wejigaaga oo dhan isla markaana toos u fiirinaya kaamirada waa in madaxaaga qaybta kore ilaa garkaagu si cad uu u muuqdo waa in aadan kor ama hoos u qaadin madaxaaga isla markaana yahay mid toos ah oo leh waxa loo yaqaan full face view waa in sawirku yahay mid isla siman oo aan lahayn shadows ama iftiin xad dhaaf ah waa in qaybta dambe ee sawirka ama background-ku yahay mid cad ama midabka caddaanka u dhow oo aan lahayn wax naqshad ah waxyaabaha ay muhiimka tahay inaad iska ilaaliso ama ka taxadarto ayaa waxaa ka mid ah muraayadaha indhaha ama glasseska hadba sidaad u taqaan lama ogola inaad isticmaasho muraayadaha indhaha xitaa haddii dhakhtar kuu qoray sidoo kale lama ogola koofiyadaha iyo waxyaabaha madaxa la saaro marka laga reebo shay diin ahaan looga maarmi waayey gaar ahaan dumarka waana muhiim in wejigaaga oo dhan muuqdo oo uusan ahayn mid qarsoon wargelin muhiim ah xafiisyada saacid agency waxay kaa caawinayaan guud ahaan adeegyada kale ah diyaarinta kaysaska iyadoo la raacayo shuruudaha rasmiga ah sixidda kaysaska khaldamay ama diidmo hore la kulmay turjumaada dokumentiyada iyo kaysaska si sax ah luuqadaada hooyo qabashada ballamaha faraha biometric appointment ka jawaabidda interviewga soo saaridda iyo buuxinta codsiyada fiisaha ka jawaabidda iimaylada kala duwan iyo talabixinta arrimaha la xiriira interviewga iyo socdaalka haddaba si aad u hesho adeeg hufan oo degdeg ah fadlan horay u gaar xafiisyadeenna ama kala xiriir lambarada sidoo kale lama ogola in sawirka wax laga bedelo ama photoshop loo isticmaalo si loo qurxiyo ama loo qariyo wax ka mid ah wejigaaga waa in aadan qoslin afkaagu xiran yahay indhahaaguna furan yihiin aadanna muujin wax ka duwan dareenka caadiga ah ee wejigaaga lagu yaqaan farsamo ahaan nooca faylku waa inuu yahay JPG cabirkuna waa inuu yahay isku mid ama square format hadba sidaad u taqaan taasoo micnaheedu yahay 600 lagu dhuftay 600 pixels baaxadda faylka ama size-ka hadba sidaad u taqaan waa inuusan ka badnaanin 240 kilobytes si aad u kordhisid fursadda aad ugu guulaysan karto DV Lottery-ga waxaa jira qaladaad waaweyn oo ay dadku galaan kuwaasoo sababa in codsigooda la diido xitaa haddii uu soo baxo ama guulaysto kuwani waa shuruudaha ugu muhiimsan ee ay tahay inaad si gaar ah iskaga ilaaliso ama isha ku hayso waa sharci darro in qofku uu diro 2 codsi iyo wax ka badan inta lagu jiro xilliga isdiiwaangelinta qof walba waxaa loo ogol yahay 1 codsi oo keliya sanadkii haddii aad dirto 2 codsi dhammaan codsiyadaada waa la diidi
doonaa xitaa haddii aad ka mid noqoto guulaystayaasha. waxaa kaloo ka mid ah qaladaadka waaweyn ee dadku galaan bixinta macluumaad qaldan ama qarin macluumaad muhiim ah kuwaasoo ku saabsan xaaskaaga, saygaaga ama carruurtaada. tusaale, haddii aad qabto xaas ama leedahay carruur ka yar da'da 21 sano oo aan guursan, waa in aad dhammaantood ku dartaa codsigaaga, xitaa haddii aysan doonaynin inay Maraykanka yimaadaan ama aysan adiga kula noolayn. waa muhiim inaad hubiso macluumaadka aad bixinayso sida magaca, taariikhda dhalashada, goobta dhalashada, xaaladda guurka, carruurta iyo wixii la mid ah, ayna yihiin kuwo sax ah oo buuxa, weliba sida ugu qoran dukumentiyada rasmiga ah. maxaa muhiim ku ah codsigaaga kadib? waa muhiim inaad meel munaasib ah ku kaydiso nambarkaaga xaqiijinta ama verification numberka waxa loo yaqaan, inaad si dhow ula socoto xilliga natiijada la heli karo oo ah bisha May ee sanadka dambe. adiga ayaana iska eegi kara bogga rasmiga ah ee programkan, maadaama uusan jirin wax email ah oo lagu soo diri doono. talo ahaan maxaa kugu habboon? si aad uga fogaato qalad haddii ay suuragal tahay, tag goobaha sawirada lagu qaado, gaar ahaan kuwa khibradda u leh, adiga oo u sheegaya inaad u baahan tahay sawir buuxiya shuruudaha green cardka. waxaana muhiim ah inaad taxadar dheeraad ah ka muujiso, maadaama photographerska intooda badan aysan aqoon fiican u lahayn shuruudaha saxda ah ee sawirkan. waxaa kaloo xusid mudan in lacalla haddii aad ka mid noqoto dadka la doortay, islamarkaana sawirkaagu yahay mid qaldan, lagu diidi karo xilliga waraysiga ama interviewga. sidaa darteed, sawirkaagu waa qodobka ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad taxadar dheeraad ah ka muujiso. xaraysashada green cardka ama lotterigu waa mid fudud oo aan dhib badnayn, balse waxay u baahan tahay dareen iyo taxadar gaar ah. khaladaad yar oo aan loo baahnayn ayaana keeni kara in qofku uu lumiyo fursaddan dahabiga ah. fadlan, haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, waxaa naga xasuusinaya inaad muuqaalka like garayso, siina sheer garayso si uu meelo fogfog u gaaro, dadkuna uga faa'iidaystaan. wixii talo ama tusaale ah waxaad noogu reebi kartaa qaybta commentiska. hana hilmaamin inaad subscribe tiraahdo si xogaha aan channelkan ku soo gudbinno aysan marna kuu dhaafin. intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doonno, waa Bahda Saacid Tube oo idin leh guulaysta.